kusoo dhawaada qaybtii 17aad oo aan ka sameeyno barnaamijkii ama showgii The Moment of Truth. qaybtan waxaan ku soo qaadanaynaa gabadha kaliya ama qofta kaliya ku guuleysatay abaalmarin heerka ugu sareysay ee barnaamijkan lagu bixin jiray oo ah markaasi $500,000. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب شرفت بدن سودو هذا مركلي كسودو هذا مقال كله ولكن صاحب كنا اسمه وسوي كنا كوسو برو مركلي وحنا ذا لا وكما سنتي سيد مقال هذا مرول بعوضة ونسان سيد مقال هذا والله جرينا سان وشير جرينا سان ولي بنا channel كعدو سبسكرايب جرينا سان انت أنكو جود جرناي سمعت أما إنا مقالة كسو سمعنا شو كان The Moment of Truth وعن مرة المركزية قيب تيسي تضوي تبنات مرول بو حاجر مركزي سؤال اللي يجوي ديناي أو وضدك أنا داونينه ma jira miya qof ku guuleystay markaasi adiga abaalmarinta ugu dambaysa ee ah markaasi $500,000 sida barnaamijkan ku ognahay kule hadii aad la socotin waxa waaye in 21 su'aalood qofka markaasi la weydiiyo in mashiinka lagu soo weydiiyo 50 su'aalood kadibna 21 su'aalood meesha loo keeno 21 kaas su'aalo markaasi u kala baxsan in qofka ilaa 6 ugu horeyso markuu ka jawaabo uu ku guuleysanayo $10,000 haduu ka jawaabo 11 ugu horeeyo uu ku guuleysanayo $25,000 haduu ka jawaabo 15 ugu horeeyo uu ku guuleysanayo $200,000 mar walba marka su'aalaha tiradoodu ay kor u sii kacdo ayay su'aalahan isoo dhimayaan oo ay yaraanayaan tiradooda qiimeyntan markaasi ay badanaysaa taasoo markaasi ka dhigayso in qofku markuu gaaro su'aasha 21aad uu markaasi yahay qofka ku guuleysanayo ama ku guul dareysanayo markaasi $500,000 hadaba marka waxa jirto gabadhan idin muuqato magaceedana la yiraahdo Melanie Williams inay tahay gabadha kaliya markaasi showgan marka la yiraahdo ku guuleysatay lacag intaasi la eg oo ka jawaabtay su'aashii ugu dambeysay okay nasiib daro waan waayay episode-kan ama showgan qaybtan isagoo dhameystiran oo internetkaasi walba aan uga raadiyay waan ka waayay oo kaliya wax markaasi ku jirto su'aasha ugu dambeysay oo la weydiiyay balse sidaas ay tahay nasiib wanaag waxaan helay markaasi yani su'aasha ugu dambeyso oo waliba ay ka horeeyaan goos yar oo lagu ogaan karo su'aalaha hore loo soo weydiiyay iyo background-geeda markaasi waxa uu yahay taasoo anagana markaasi xiise gooniyo noo sameynayso waayo su'aasha ugu dambeysay kaliya hadii aan maqlayno waxba saas ah ma soo kordhin lahayn ila tahay marka waxa inoo bilaabanaya su'aalaha gooska iyo sida ay uga jawaabtay si aan markaasi aan ugu gaarno su'aasha 21aad ee la weydiinayo oo lacagtan markaasi ay ugu guuleysanayso. Your father has 38 children. Your mother had how many? ware aabaha 38 caruur ah ayuu dhalay ayaa la yiri marka hooyadana waa imisa inta ay dhashay macnaha aabaha 38 caruur gaala laba cunug ama hal cunug ka badan ma rabta la dhigi jiray dadkana been dhahay walaa ay balooyadana meeqay dhali doontaa. My mom had 14 with him and she had her 15th from her new husband. Whoa! aabaha iska dhalay meel kale uu kaga guursadeen umaleena hooyada aaba waxay dhashaba 29 waxay tiri hooyadeeda aabahe waxay u dhashay 14 nin kale ee cusub ay guursatay waxay u dhashay 15 kale marka meeqay isku guursadeen dadkan talow. Did you ever witness members of your polygamous community providing alcohol to underage minors? ay su'aasha odayga wallahi calool xanuun ay ku noqoto way xanuunaysaa leeyahay su'aasha la weydiinay gabadha yani gabadha maadaama markaasi ay ka dhalatay qoys oo xaasas badan macnaha dad oo xaasas badan guursado oo maaragtay yani waxa waa dad oo dhaqan iyo diin ahaan oo noocaasi haysta marka waxa la dhahay weliga ma ka marxaati kacaysaa macnaha mise ma aragtay reerihiina ama qoysaskiina oo maaragtay xaasaska badan iyo sidaas ugu dhaxnooshiin dad kamid ah oo caruurta yar macnaha oo ayaga ahaan markaasi gaarin 18 ayagoo markaasi siinayo qamri ama alcohol macnaha. Yes. Hay dhahday gabadhan wax badan ay soo fashishay. Do you think your father was wrong to set you up on a date with a 73-year-old man when you were a teenager? su'aala adag ay kasoo jawaabtay gabadhan waxa la dhahay ma u maleynaysaa inuu aabahaga ku qaldana ilaan aabaheeda iyo qaar kamid ah walaalaheeda aad meesha fadhiyo ma u maleynaysaa in aabahaga uu ku qaldanaya la dhahay inuu ku raaciyo nin macnaha shukaansi ahaan ku raaciyo markii aad ahayd yani qof dhalin yar
weliba ninkana uu ahaa 73 jir. Yes, of course I do. Yes, la u dhegan walaa. Did growing up in a polygamous community make you fearful of intimate relationships with men? su'aalahan waxay ka mid yihiin su'aalaha ugu adkaa ma aragtay markaasi ama ugu xiisaha badnaayo ayada la weydiiyey. Waxaa la dhahay macnaha xaaladda meeshaas adiga aad ku soo kortay oo gabdhaha ayagoo yar niman la siinayo oo weliba ka waaweyn oo naagaha caruur badan dhalayaan saas xaaladdu ay tahay meeshaas adiga aad ku soo kortay ma waxay kaa dhigtay inaad ka baqato in macnaha nin dhanba yacni arrimahoos aad la wadaagto macnaha qalqal ma lagugu soo furo waa. While living in a polygamous community, did you know of any underage girls who were married to adult men? inta aad ku noolayd ama la noolayd reeraha yacni reerihiina oo yacni saas u tirada badan ma aragtay aad dhahay ama ma og tahay gabar ka yar ma aragtay markaasi qaangaarka oo meelaha galbeedka markaasi ay ku xisaabayaan ilaa 18 jir ka yar oo loo guuriyay qof weyn. Yeah. yaa la u dhigan ayada. True. And the producers have picked one of those three questions, and I hold it in my hand. su-aasha hadda la weydiin doono oo 21aad macnaha waa su-aal intuu showga socday marka 20ka hore ay ka jawaabtay mar kale dib loo weydiiyey waaye oo ay ka jawaabayso macnaha 3 su-aal la weydiiyey hal ayaa laga soo qaatay oo ay u maleeyeen ayaga tan ugu adag inay tahay tii ay maaragtay markaasi ay u keeneen. I'm going to give you an option. I'm going to show you this question. su-aasha sharcigeedu wuxuu yahay markuu qofka ninka daadiyaha barnaamijka markuu su-aasha hal mar hadduu aqriyo waa in laga jawaabaa. marka hadda gabadhan ikhtiyaar ayuu siiyey oo ah inuu su-aasha uu u dhiibo su-aasha markaasi gabadha ay arkaysaa ayay su-aashan su-aal aad ka jawaabi kartid miya ayaa la leeyahay markaa. So if you think you got one more in you, try it. aabeedii aba dhiirgelinaya aabihii qabiilka dhalay wuxuu leeyahay macnaha haddii aad dareemaysid in su-aasha aad ka jawaabi kartid ku soco. Is that the one you were fearing it Yeah. might be? I knew they were gonna do it. okay su-aasha waa la tusay markaa su-aalay ka baqanaysa waaye kolay tan ugu adag waaye waan u malaynaya dhahda inay sameynayaan. okay su-aasha kolay ogaanaynaa he. If you continue and answer incorrectly, your $350,000 drops to $25,000. okay su-aasha hadda way aragtay waxaa la siiyey markaa ikhtiyaar waxaa la dhahay su-aasha haddii aad u malaynaysa inaad ka jawaabi kartid ka jawaab haddii kale 350,000 oo aad hadda haysatid hoos waxay ugu degaysaa $25,000. I'm gonna do it for my dad. I'm gonna go for it. aabahay aan u sameynaya ay dhahda dartiis macnaha aabbaha qabiil dhanaa biilka sugooyo waa miya macnaha. It's a dumb question. Excuse me. But it's a tough question for me. su-aal adag waaya leedahay su-aal adag hadday adag tahay lacag rabtaa ka jawaabeen oo aan oyn anaga. But I can do it. So let's do it. su-aal adag waaya dhahda laakiin waan sameynaya geli haye anaga waan rabnaa noo soo daaye. Question 21. Do you believe your father, as an adult, has ever had sexual relations with a minor? ay waxaa la dhahay ma aaminsan tahay in aabbahaaga macnaha isagoo weyn isagoo qof weyn ah uu xiriir wada seexasho ah ama waxay doontaba xiriir oo ma aragtay dee hoose uu la yeeshay ilmo ka yar macnaha sida ayaga ay u ictiqaadsan yihiin oo ah markaasi qof 18 sano ka yar. Yes. hay dhahda I'm sorry yes su-aasha loo dhiibay waxaa la su-aashan haye ka waran su-aashu way u jeedaa inay tan tahay waxay tiri aabahayga dartiisaan u sameynaya su-aashiina aabahay qusaysaa macnaha oo maaragtay aabahay ceeb dhex istaajine waa sheeko kale wallaahi. True. keliya waxaa qoslaysaa haddaa 10,000 ama $25,000 aad ku guulaysatid unbaad farxaysaa maahane qofku markuu maraayo inuu ku guulaystay 100,000 wuu oynaya 200,000 sidoo kale $500,000 ay ku guulaysatay gabadhan wayna oynaysaa. You just won $500,000. aabihii iyo labadii kale masraxa la soo saaray. Yes. And Are you saying that one of his 4 wives in the polygamous lifestyle was not 18 when he married her? yes. sheekada marka waxaa waaye community ahaan ama dhaqan ahaan meesha ay degan yihiin ayaa maaragtay waxay ahayd in oo dee yacni adiga odayaasha iyo dadkaasi laga dambeeyo marka waxay tiri aabahayna
gabaraa loo keenay oo yar isagana ma diidi karin oo waa lagu qasbay sidaas uu ku guursaday oo isagana xitaa uu ka xun yahay oo ilaa haddana gudahay ka dhibaataynaysa arrintaas inuu sameeyo uu ka xun yahay marka ninkii toos u weydiiyo wuxuu yidhi ma waxaad leedahay aabbahaaga afartiisii xaas hore ayaa mid waxay ahayd macnaha under age oo macnaha da'da 18 ka yar hay tiri. Wife number 2 was 17. Her father, asked me to marry her and had the thing all set up, and that was the xaaskayga labaad waxay ahayd oo dhahay 17 jir aabaheedii markaa rabooday oo dhahay inuu aniga ii dhiso guurkii waxaasna ayaga go'aamiyay marka anigana ma diidi karin oo diinteedana saasay ii sheegaysaa saasan ku guursaday. Marka insha Allah qayb kale ayaa wali jiro oo inoo soo socda haduu alla idmo oo ay ka mid tahay waliba qayb xiiso badan oo nin yiri hadda ka hor ayaa waxay afduubteen macnaha dad oo ma aragtay koon kale ka imaaday adiga dadkan aliens kala lahay oo kale ayaa ay afduubteen oo maalmo ay soo haysteen kadib ay soo daayeen oo dhahay markaa sheeko wuxuu ka qoray buug sidaas marka showgana la keenay si runta iyo beentaasi loo ogaado. Marka insha Allah muuqaalka xigo barnaamijkan aan ka sameeyay kaas oo inoo noqonayo waana muuqaal xiiso badan. Okay dhamaantiin marka waa maasantiin insha Allah inta muuqaal kale aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabad.